weligaa daawade ma isweydiisay adigoo hawada sare ku safraya oo saaran diyaarad haddii mar keliya koox shimbiraahi ay shaandhada kaga xiroodaan ama ay waxyeeleeyaan marwaxadaha dhaqaajiya mashiinada diyaarad dabadeed ay ruxanto oo qiiqa iyo bulhanku cirka u baxo maxaad samayn lahayd mise isweydiisay waxa ku dhacaya haddii mashiinada diyaaradaha ku rakiban baallaha hoose diyaarad ay ku dhacaan walxad duulaya waxaa dhici kara maxaad u malaynaysaa in lagaga gaashaanto ama sidee looga hortegi karaa maadaama ay lama huraan tahay in ay mar uun walax duulaysaa si kedis ha u gasho marwaxadaha wareejiya mishiinka diyaarad warbixinteennan kaga bogo daawade sida laysaga xil saaro hawshaasi adag ugu horrayn haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaan kaa codsanayn inaad falow garayso beejkan Dulux Media laygtana nagu caawiso si ay kuu soo gaadhaan muuqaaladayada maalinla ah ee aan idinkula wadaagayno xogaha muhiimka ah siina sheergare oo la wadaag asxaabta kale mahadsanid waa arrin isweydiin mudan waxaa ku dhici kara haddii walax ama noocyada kala duwan ee haadka samada duulaya ay galaan ama ay si kedisa ugu dhawcaan marwaxadaha wareegaya ee diyaaradaha arrintani waxaa loo yaqaanaa bird strike ama weerar shimbireed waa khatar joogto ah oo halis ku ah gaadiidka cirka taasi oo sababta masiibo aan laga soo waaqsan maxaase dhacaya haddiiba ay dhacdo sidani diyaaradaha sida gaarka loo kaxaysto ilaa kuwa ganacsiga ee qaada kaargooyada iyo kuwa qaada boqolaalka qof maalin walba wax damaanad ah uma haystaan isticmaalka hawo badqabkeeda la hubo laakiin waxaa jira qorshayaal lagaga gaashaanto waxyeello kasta oo ay muhiim tahay in laga taxadiro maadaama ay waxyeellada ay shimbiraha iyo walxaha kale ee duulaya ku sababi karaan diyaaradaha aanay ahayn waxyeello naadira ay tahay wax soo noqnoqda waxaa laga yaabaa in dadku aanay ogeyn waxyeellada ay haadda hawada duulaysa ku sababi karto diyaaradaha iyadoo ay dadku u arkaan in aanay waxba yeeli karin laakiin shirkadaha sameeya diyaaraduhu waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu culus ee ay si weyn isaga xil saaraan islamarkaana ay dhib weyn ka mutaan inay gaashaan adag u sameeyaan islamarkaana ay ka dhigaan marwaxadaha dhaqaajinaya mishiinada diyaaradaha kuwa adkaysan u leh inaanay si fudud ku dhibaatayn ama aanay ku waxyeelayn shimbiraha iyo walxaha kale ee ay suurtagalka tahay inay hawada heehaabayaan haddaba habkan lagaga gaashaamanayo waxyeelladaasi aanu soo sheegnay ee halista weyn ku ah diyaaradaha ayaa la yidhaahdaa markaa tijaabada la marinayo chicken gun ama the bird cannon waa digaag bakhtiyey ama shimbir lagu tuurayo mashiinka diyaaradda xilliga uu tijaabada ku jiro waxaa iyana jira qodobo kale oo ay muhiim tahay inay xisaabta lagu darsado kuwaasi oo go'aamin kara heerka ay leekaan karto khatarta ay shimbiruhu ku sababi karaan diyaaradaha xawliga ay ku soconayso walaxda ku dhacday marwaxadda diyaaradda heerka xawaaraha diyaaradda sidoo kale iyana waxaa ka mid a joogga ay ku duulayso diyaaradda iyo mararka qaar oo ay dhacdo in koox shimbir ah ay ku dhacaan marwaxadaha diyaaradda ugu dambayn arrintani ka gaashaamashada walxaha hawada duulaya ee ay shimbiruhu ka midka yihiin ayaa waxyeello bacan oo joogto ah ku haysa diyaaradaha hawada sare kuwaasi oo ay shirkadaha sameeya gaadiidka cirku si weyn uga gaashaantaan si loo ilaaliyo badqabka rakaabka u safraya gaadiidka cirka